طابت بجمعتكم هنا أيامي وسرت بأشعاري لكم أقلامي. xafladda aad u heersaraysa oo ay soo agaasintay hay-adda almustaqiim foundation loogana gun lahaa isku baraarujinta ahmiyadda daryeelka carruurta agoonta ah ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho. samafale imaam sheekh xasan jaamici ayaa si gaar ah waqti kula qaatay carruurta agoonta ah ee ay daryeesho hay-adda almustaqiim foundation. xafladdan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda almustaqiim foundation oo ka mid ah hay-adaha samafale ee ka howlgala dalka soomaaliya, waxaana xafladda ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimaadudiin, aqoon-yahano, oday dhaqameedyo, ganacsato iyo waalidiinta dhalay carruurta. ugu horreyntii waxaa xafladda daafuray agaasimaha hay-adda almustaqiim foundation mudane cabdirashiid cali xasan, waxuuna u mahad celiyey soona dhoweeyey dhammaan marti sharaftii ka soo qayb gashay xafladda. mudane cabdirashiid waxa uu ka dhawaajiyey in imaam sheekh xasan jaamici oo ka mid ahaa marti sharafka xafladda uu ka mid yahay samafalayaasha aadka u taageera carruurta agoonta ah oo ay gacanta ku hayaan. waxaan soo qabanqaabinay xaflad aan ugu talagalnay carruurta agoonta ah iyo doctor imaam xasan jaamici oo ka mid ah samafalayaasha hay-adda almustaqiim aadka u caawiya oo runaantii maalmahan jooga magaalada muqdisho. sidoo kale xafladdu waxay wadataa ujeedooyin fara badan oo ay ka mid yihiin maadaama aan ku jirno bisha abriil oo ah bishii la aasaasay hay-adda almustaqiim foundation, sidoo kalena ay gebagaba noomanayso sanad dugsiyeedka iskuulka agoonta almustaqiim. waxaa xusid mudan in gudoomiyaha hay-adda cabdixakiin cabaas xaaji iiraan oo ah aasaasaha uu naga maqan yahay, laakiin uu salaan qaasa uu soo diray dhammaan ardada iyo marti sharafkaba. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon cali xasan cali jeesto oo ka mid ah oday dhaqameedyada soomaaliyeed. nabadoonka oo goobta ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa marka hore u mahad celiyey mas-uuliyiinta hay-adda almustaqiim foundation, sidoo kalena waxa uu aad ugu gubaabiyey inay sii wadaan hawsha quruxda badan oo ay bulshadooda u hayaan. wax lagu farxo oo aad iyo aad u sharaf badan oo qiimo leh ayaa noo muuqanaya. dhammaanteed maga waxaan u wada mahad celinaynaa raggii sidaan u soo qabanqaabiyey. waxaan leenahay maadaha idinka gaarto, ciyaalkana kuwa ka faa'iidaysta oo ku himilo gaara oo wax ka barta allah ka dhigo. maamo maano oo ka mid ah waalidiinta dhalay carruurta agoonta ah ayaa iyana hadal aad u qiiro badan goobta ka jeedisay, iyada oo sheegtay inay hay-adda almustaqiim wax u barto ilaa 5 carruur ah oo agoon ah, 3 ka mid ahna ay u tahay iyadu ayeeyo. waxayna sheegtay inay gabadheedu ka dhimatay oo ay sidaasi carruurta ku noqdeen aabbe iyo hooyo la'aan. maamo maano ayaa aad ugu mahad celisay garabka weyn ay ka heshay hay-adda almustaqiim. bismillaahi raxmaani raxiim. intii owlaadan wax noo bartay ciyaar ma aha. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. anoo la daaraan dhacaayo owlaadan ilaahay wax ii keenay hay-adan wax lacag la'aan igu barta oo buug ay siisi oo dharkii igu gaday oo qalankii igu gaday. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. ilaahay ajir xasanaad alla soo koobi karan allah ka siiyo. ilma aabiyo hooyo aan lahayn oo gabadheeday dhashay ii haayaan, wax aniga aan dhalay ii haayaan agooman maanta wax la soo koobi kara ma aha. waxaan tuuganaa adduunya aakhiro inaa ilaahay ajir iyo xasanaad alla soo koobi karan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka siiyo. waxaa kale oo munaasabadda ka hadlay abwaan indha geelle oo ah abwaan aad looga yaqaano dalka kana mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, waxaana goobta ka jeediyey geeraar aad u qiimo badan oo uu kula dardaarmayay ardayda agoonta ah ee dhigata iskuulka almustaqiim. ardayda iyo dulaabtow waa lagugu dadaalay haysdulooynin qudhaado. wax waa fahmi kartiin inkastood yartihiin intaana ummada dartiina isugu imaaday. in laydin jecel yahay waa idiin muuqataa mahno, waa laydin darajeeyey ee haysdulaynin adinko. haysdulaynin qudhaado oo doctornimo hiigso iyo digrii ka sarreeya. haddaayicin waqtigaaga dugsigii kol aad joogto, kol aad daalacanaysood casharadii dib u raacdo, kol aad daashaska xaaqdoo digsiyadood marxashaa ood ka ducaysato hooyo. saxadaada daryeel oo leylkii durba seexoo ha ku daahin bannaankee oo kolka waagu dilaaco durba
darbo oo ishagaaji buugaagtaada diyaarso ee dirays wasakhaysan iyo weji diifay ku taalla dugsigii hala aadin. ugu dambeyntii waxaa xafladda ka hadlay soona xiray samafale Dr. Imaam Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidka dacwa ee magaalada Minnesota ahna professor wax ka dhiga jaamacadda Islaamiga ah ee Minnesota. wuxuu imaamku aad uga sheekeeyay fadliga iyo abaalmarinta ay leedahay gacan qabashada iyo garab istaagga carruurta agoonta ah. waxaan idiin sheegayaa wax la qabto waxa ugu khayr badan ilaahi subxaanahu wa tacaala cibaadada la caabudo kadib insaan oo wax la taro. xadiis ayaa waxaa jira rasuulka calayhi salaam oo ka sheekeynayo bacd insaanka markuu caabudo ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa dadka uga khayr badan khayru naasi anfacuhum liciyaalihi saasuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa. dadka waxaa u khayr badan kan ilaahi subxaanahu wa tacaala dadku abuuray ee wax tara. kuwaas haddana waa sii kala khayr badan yihiin. haddana kuwaas waxaa usii khayr badan agoonta qofkii wax tara. waxaana daliil u ah waa meesha keliya rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ana wa kaafiru lyatiim kahaatayn markaasaa waxaa la yidhi fartiisa tawxiidsata iyo farta dhexe uu rasuulku isku qabtay. wuxuu yidhi aakhiro marka la tago jannada gurigayga waxaa ku dheggan kan kafaala qaada agoonta gurigiisii gurigayga isku dheggan yihiin. marka ma ahan jannaduu gelaya oo keliya way ka sii dheer tahay. ma aha qayb ka mida qaybaha sarsaruu gelaya maya rasuulka meesha uu gelaya jannada uu ka gelayo dariskiisuu noqonaya. waxaa sidoo kale xusid mudan oo xafladda dowr muhiim ah ka qaatay ardayda agoonta ah ee dhigata dugsiga almustaqiim iyagoona goobta ku soo bandhigay nashaadaad ay ka mid ahaayeen nashiidooyin iyo heeso ka hadlayay qarannimada Soomaaliyeed oo uu tiriyay abwaan Macalin Bashiir Maxamuud. وما على تلاقيكم بكم ضاعت محافلنا وعم النور ناديكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم قلوب الناس أجناد كما قد قال هاديكم فإن لفت فقد عرفت كمائل قد بدات فيكم أحييكم قيمة وينا قرن ماذ قيمة وينا قرشايا قام بيربتا قرن ماذ نفتقى لقالو ريربتا قرن ماذ قبيلي يدنس لك الدفاع ربتا قرن ماذ قوة اسكدوبا نو قياس له كتاب كاد لقادته وحقبستي طابت بجمعتكم هنا أيامي وسرت بأشعاري لكم أقلامي.